kusoo dhawaada barnaamijkan oo barnaamij gaar ah oo idinka imanaya magaalada Gothenburg oo caasimadda labaad ee waddanka Sweden. waxaynu inta badan maqalnaa dhalinyaro Soomaali ah ama Afrikada kaleba ka soo jeeda oo ka soo tahriiba xeebaha wadamada ku yaala waqooyiga Afrika, khaasatan waddanka Liibiya, kuwaasoo mararka qaarkood dhibaatooyin xoog leh ay la kulmaan. iyadoo sheekooyinkaasi ay haddaba aad u faafeen ayaa haddana weli waxaa jirta in dad fara badan ay ka soo tahriibayaan qaaradda Afrika oo Soomaali fara badanna ay ka mid yihiin. Saciid Maxamed Yuusuf waxa in muddo imika uu ku noolaa waddankan Sweden. Saciid waxa uu ka nabad galay masiibo badda ku qabsatay iyagoo markaa ka soo tahriibay waddanka Liibiya. Saciid goorma ahayd walaal? 2005 bay ahayd. safarkayga waxaan ka soo bilaabay magaalada Erigabo ee gobolka Sanaag, Soomaaliland. gartay way waad soo baxday bal hadda la xusuusi jidkaad soo martay. safarka aniga iyo laba nin oo saaxiibada ayaanu ahayn waanu ka soo baxnay magaalada Erigabo. waxaanu nimiyay Hargeysa, Ethiopia, Suudaan waxaanu ka soo gudbay markaa Liibiya. labadii saaxiibkay midna Ingiriis baa degan yahay, ninna wuxuu degan yahay Finland. way Liibiya markaa aad timaadeen muddo intee leeg baad joogtay? Liibiya wax badan baan joogay Cabdisalaanow, malaa muddo bil ka yar. safarku wuxuu nagu qaatay muddo min Soomaaliland waqtiga way fududeed ilaa iyo Liibiya 2 bilood. marka adigu ilaa diyaar garowgaygii Liibiya wax laga yaabaa 3 bilood ilaa 4 bilood meelaha aan sii joogo. way markii dambe doonidii baa hesheen deedna maxaa dhacay? markii dambe doonidii baan raacnay laash yar oo aan runtii xajmigiisu dhererkiisa xagga waxaan malanayaa inuu ahaa ilaa 8 mitir, xaggana 3 mitir ayuu ballaca u ahaa. waanu soo raacnay dad 30 qof tiradoodu gaadhayso ayaanu ku soo raacnay, 6 dumar ah iyo 25. deedna maxaa dhacay? runtii waqtiga dad badan ayaa soo baxayay oo xilliga badda furantay ay ahayd. Soomaaliduna meel ay markaa deganeyd oo la oran jiray kaamka UN ku siiyay ayaa dawladdii Gaddafi ay ka burburisay. dadkii khasab waxay ku noqotay inay dooniyihii qof walba u shaqeeyaan doonida baxaysa lagaga horeynin. waxa kale oo jirtay waqtigaas beriye bay ahayd farahan Dublin la yiraahdo ay soo baxeen. qof walba markaa wuxuu ka cararayay faraha laftoodu Maalta oo markaa aan si rasmi ah ugu biirin midowga Yurub in ay iyaguna ay ka gaadhaan. labada jaanis markaa anagoo isla ka faa'iideysateen baan soo baxnay saacado ilaa habeen iyo maalintii habeenkii barkii dambe ilaa iyo maalintii dambe casarkii meelaha ayaan badda ku soo jiray. badda ayaan ugu kacday. badda markaan ugu kacdayna shidaal badan ma aanu haysan, biyo badan ma aanu haysan. kadibna adigu waxaa naga dhamaaday biyihii iyo shidaalkii aanu haysanay iyo baddii aad ma u kacsan. waa tahay markaa shidaalkii doonidu way goosatayba miya? runtii shidaalkii way goosatay. waqtiga waxaana aragtay diyaarad yar oo Maalta laga lahaa oo sawir naga qaaday. dabeetana waxay isku dayday inay ay Maalta la xiriiday sida ay soo saareen ciidamada Mariniska Maalta inay meeshii yimaadeen oo ay ciidu soo direen. laakiin nasiib darro wax yar oo shidaal ah oo markaa 20 litir ayaan haysanay meeshiina lagu arkay ayaanu ka dhaqaaqnay intaanu iskhilaafnay. dabeedna badduna way kacsanayd muddo sidii bay nagu waayeen diyaaradii iyo maraakiibtii Maalta noo soo dirtay. Saciido markaa doonida intii aan shidaalku ka gooyin haddaynu dib ugu yara noqono yaa idin waday? doonida inaan Soomaaliya oo yaqaano sida doonyaha loo kaxeeyo. yaqaano sida markaa la shashka loo kaxayn jiray oo badda ku dhintay asalkiisuna reer Berbera ahaa Maxamed Xasan Xawaali la oran jiray. gartay markaa idinku maxay isku khilaafteen? wallahi Soomaali dadku wada ogtahay run ahaantii markaan baddu saacadaha way naga yaray deganeyd. marka anigu dadkii soo jeediyay baan ku mid ahaa aynu yeynaan meesha ay diyaaraddu inagu aragtay ay dhow ku sawirka naga qaaday yeynaan ka dhaqaaqin. laga yaabaa in meesha Ilaahay uu gurmad inoogu soo diro. laakiin dadkii anigii inankii darawalka ahaa isku mowqif baanu qaadanay. laakiin waxaana diiday oo naga awood batay dadkii kale oo markaa u badnaa dad geeri ku wada waraa oo saacadahoodii u dhimanayay. laakiin Saciido markaa shidaalkii ay goostay doonidu miyaan mawjadaha iyo dabayshu idin wadin ma idinka control gareyn karayay doonida? maya markaan intii 20 litir aanu haysanay adigu muddo laga yaabaa saac ka yar saacad ayaanu ku soconaynay
kadibna markuu naga dhamaaday markii dambe anigu maan control garan karin hadda meeshii ay mawjadu noo ka hayso ayuun baanu anagu u soconaynay oo baddaas un baana wadatay waxa laga yaabaa 2 maalmood ka hor meeshii anaga ka haysaynay maalinta baan ugu socodso sahaydi ay sidatay goorma idinka gool maalintii labaad baa nalama gaarin qofkii noogu horreeyayna maalintii saddexaad baa casarkii galabnimo markay ahayd ayuu dhintay dumarkii baa ka mid ahayd qofkaa dhintay bise ragga maya muu ahayna wiil buu ahaa la odhan jiray mahad warsame nuur oo runtii reer buula berdi ahaa oo kasoo jeeda gobolka hiiraan marka maalintii saddexaad buu dhintay maalintii saddexaad buu dhintay waay dadka intoodii kale adigu dadkii niyad jab iskaga dhacay runtii badda oo dee aad u kaxsanayd oo mar walba mawjado iyo biyo badan oo noo soo gelaya aanu ka dhowraynay cunto la'aan maalintii oo ay cadceed aad u fara badan badda ka dhacaysay iyo habeenkii oo rutuubad ama qabow aad u fara badan isaguna nagu dhacayay iyo gaajidii iyo baahidii marka ilaa maalintii saddexaad dadka qaar ba waxay cabbeen maalintii afraad maalintii shanaad waxay cabbeen biyaha badda markay cabbeen milixdii waxaa ku dhacay shuban amba sitriya caloosh kaga dhacday dabtana qofkii maalintii afraadba shanaadba 2 qof oo kale ayaa dhintay gartay dadku markay dhimashadii bilaabantay sidaba odhanayseen meydka wallahi dacabsalaanow qisa kale wax kale ma jirinin waxaanu sameeynay marihiisa inta aanu ku xidhxidhno oo dadtana aanu waliba salaatul jinaaso aniga iyo nin kale oo wadaad ahaa markaa dhintay aan ku tukano ayaanu markaa badda oo iskaga tuuranay waxa la yiraahdaa dafna fil bahr ayaanu sameeynay baddaas oo ahayd meel qofkaasi aanu ku aasno intii Siciidow doonidu ay idin la socotay waa la qiyaasi karaayo dee way isqaadsiinaysay marka dadkii soo dhacay saad sheegaysa qaarna shuban ku dhacay qaarna gaajo ay la liitaan xaaladiinu sidaa ahayd anigu waan arki jiray yaraantaydii xoolo ari xanuun ku dhaco oo habeen walba dadna uu qaar dhinto marka bini aadan u dhimanaya caawa mar habeenkii la seexdo ama habeenkiiba 3 2 4 dhimanayso sida loo soo tirinayo kuwii ugu horreeyay ee noloshayda aan daawado ama aan shaahido ayay ahaayeen maydii suurta galaysay Siciidow inaa kalluun ka soo qabsataan badda oo kale wallahi cabdisalaanow horta awood waa gaaban tahay maalmaha u horreeyay markii aanu ayaarin baddu way isku daynay inaanu soo qabsano laakiin laba mushkulaba way jirtay baddu aad u kacsaneed oo markii baddan Mediterranean-ka marka hore way ka xuntahay baddeena oo uu ku yaryahay kalluun marka labaadna waxa iska yarayd inaanu helo dema haysatid waxaad wax aad ku cunto ama awood kalluunka sidiisa way nagu adag tahay inagu kalluun ceelin wadamadan in hadda joogno kala cabsalaan waa aragtaa in milix yar dadku waa ku darsadaan laakiin naga dhaqankeena hore lamu qabsanin kalluunkii oo sidiisa inaan cunno taasina markaa aad nagu adag gartay dumarkeeda la saaraa iyo geeridooda goormay bilaabantay wallahi cabdisalaanow dumarku waqtigii hore may dhiban laakiin maalintii la soo gaaray ilaa maalintii 8aad maalintii 9aad ayay gabadhii noogu horreysay oo leeyahay la odhan jiray ay gabdhaha dhimatay waayo waxaan haystay saacad sida tan haddaan hayso kale ee kaasiyada la yiraahdo dibadna waxaan qori jiray buug yarna waan hayay waxaan qori jiray maalinta qofka dhintay magaciisa iyo telefoonkiisa iyo way buug baan haynay telefoonada iyo magac markii hore ku qoraayeen qofkaas saacadaas uu dhintay xilligaas uu dhintay inuu buug ku qoray inta Siciidow markaa doonidu hadba ay meel idinla tegaysay baddu ay iska wadatay marna lama idin kulmin wax maraakiib badda maraya ilaa 50 markab wax ka badan baan la kulanay waayo meesha ugu badan maraakiib marto laakiin waxa dhacday birigaas markab Jarmal ku lahaa ayaa dad sida iyadana kala abada ka badbaadiyay markabkii dadkii uu badbaadiyay waa laga cidina way diideen wadamada dariska Spain baa diiday Talyaaniga diiday Malta diiday aakhirkii Jarmal ku keenay saasa markaa inta sawir naga qaataan mararka qaar kood xataa inagu meedkii tuurayna way bayna dhaafi jireen naga tagi jireen oo cid kaliya isuba kiintaay cid alla cid isuga konton markab hadaan ka badnayn intaanu ilaa 100 ku dhow way ahaayeen mar walba waan arki jiray doonyo kale oo tahriib saaran badda ma ku aragtaan iyaga may inta aan joognay badda way kacday mar haday baddu kacdona gaadiidka xagaa ka imanayay wuu joogsadaa ugu yaraan 8 casho 7 casho isku xigtay ama 8 casho baddu way kacsanayd oo wax gaadiid hoos soo galay oo yaraatay kulli anagu maan arag una maayo waqtiga ay soo galiyeen gaadiid muddo intee lag bay markaa doonidu hadba meel idin la kacaysa wala cabsalaan oo maalintii aanu soo baxnay ay doon maalintii labaad ee safarka iyaga badana waxaan ku jiray maalintaan soo baxnay ilaa maalintii nala helay 23 maalmood 23 maalmood
والله ما المود مو ينتك لا إذا وحبا لو عنا ما المضي وحن عني وحن لو حن عبني دي وحن عني وحن هيسدي ما بيشد سعيد مركا كما دنبايستي maalintii 13 imise qof baa ku soo hadhay waxaan ku soo hadhnay laba laba nin oo kaliya laba dadka intii kale waa wada dhinteen oo tirahan intee noqonaya 29 qof iyo 30 baan ahayn 29 qof baa dhintay 6 dumar iyo 23 nin qof baa dhintay gartay idinka dareenkiin adiga iyo ninka kale waliba haddaan adiga ku weydiiyo dareenkaagu sababaha marka asxaabtaadii ay wada socoteen midibo uu maalin dhimanayo xaqiiq waxay ahayd geeri aad arkayso waad indhahaaga ku aragtay oo ay safsa u soo gashay oo qofkii xagga ka xigay kii sii xigay uu dhimanayo oo dadna aad tirsanayso maalin walba aad oranayso shalay waxa ahaydeen 30 ma aqoob iyo 30 maanta waxaad tihiin 29 maalinta xigta waxaad tihiin 25 maalinta xigta 24 maalinta xigta 19 maalinta xigta 5 saas waxaad oranaysaa marka geeridii inay adiga kugu soo socoto marka ma garanaysid lambarka aad ka noqon doonto wax ku sawiran in aad qof geeri u diyaar garoobay oo geerida oo xaqiiqo ah arkaya inay tahay oo dadna sawirkii geerida iyo adiga ay istaawanaysan labadiinu markaas ciido haddaan ku weydiiyo sidee ku badbaadiyay wallahi cabdisalaam horta ajasha bini aadamku maalin beelada ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala qof walba cimrigiisa qoray waqtiga uu dhimanayana qoray waqtiga dheelanayana qoray marka waxaan oran karaa wax kale kuma badbaadinay inaanu waxaan markaa noo baaqay ahaa oo ilaahay xaggiisa subxaanahu wa ta'aala noogu qoray inaanu sii noolaano inuu labadiina marka ayaa idin soo badbaadiyay waxaan soo badbaadiyay cabdisalaam subaxyada ka mid ah doonta laashku wuxuu lahaa meel yar oo hore oo harka in yar oo halka hore ku leeyahay hore oo sidii qan yar oo kale ah halka ayaanu iska fadhiisay jiray habeenkii todoba badan baa dhici jirtay marka subax goor waagu bariyay oo cadceed markaa soo baxday oo daduna ay iska degan tahay ceel oo kale tahay ayaa ninkii saaxiibkay oo aan Cabdifataax la yiraahdo wada nool aan kici karaynin ayuunba wuxuu igu yiri sidoo jiifay dhulka miskahaas isaga way dhamaadeen oo way dalooshadeen maalintiina aniga ay biyaha aad u soo dari jiray badda hadda biyaha soo daraa waayo waxaan cabbi jiray kaadidayada oo dadka dhan waxay cabbi jireen oo ka soo dhaafay Cabdisalaam kaadida iyo biyaha badda bal isku dari jiray taasna macal gabdhaha markay noolaayeen sidaas la isku weydiisan jiray oo caagadan igu soo kaadi dabadna noloshu saasay ahayd marka biyaha waxaan soo dari jiray maalin walba marada markii cadad ku lasho biyaan soo dari jiray oo maradan soo tuuqoyn jiray dadna meeshaas ku ilaalin jiray soo muuqi kari jirin oo jidkii baa dhamaaday awoodiisana way dhamaatay ilaa awood noqday uu iska jiifay saddexdii qof inoogu dambeeyay oo meed ahaana way oo maalinta 9 wiilkii inoogu dambeeyay oo dhintay doonida idin saaray laashkeena la saaraayeen oo aan maanu tuurin mana awoodi karin aan tuuro marka anaga subaxii dambe ayuu istaago wuxuu igu yiri maanta kici markaan kiciyay oo istaagay ayuu saabada u sii qoraansaday dadna baddu isku tuuray isagoo doonaya inuu dhinto kadibna waa sii qoraana waa iska sii daba taago waa sii fiiriyay waxaana nafku waa macaan tahay intuu gacanta soo taagay buu qabo runtii gacanta bidixda ayaan soo qabtay dadna waxaan ku oriniyow kama saari karayo laashkii badda aad ugu kaxsan yahay marka gacantana ku haynaya soo dabaalo xagga u dambayso oo gaaban motorka ku xidhan yahay motorka saad u soo qabsato ama kugu caawiyo dhinacan soo wareeg marka intii aan ka dhamaanin meeshii ayaa waxaan maqlay motor buuxiya baan maqlay dadna waan fiiriyay dadna waxaan arkay ilaa 200 mitir 300 mitir doon noo soo socota oo iyaduna aragtay waan anagu markii hore arkay dadna waan sheegay saaxiibkay aku doon baa inagu soo socota marka wali baddu ku jira gacanta uma haya kadibna meeshii motorka ayaan tan doontina soo gaadhina keenay isagoo aan meeshii motorka cagtiisii wali ku hayo ayaa markaa doontii soo faa'iideeyay doontii nimantoona siyaana baa lahaa oo watay waxay doon weyn oo Greek u socota dabadna doontii waxay nagu yiraahdeen markay arkeen meedkii oo laashashka dul saaran ayay waxay ku soo tuureen bustayaal iyo wax dadna way qeyriyeen intay busadu shaqada tuureen bay dadna wax hadleen istaa marka maxay meedkii ku soo tuurayaan meedkii iskaga qariyeen kadibna waxay nagu yiraahdeen xagga ka timaadeen waxaan sheegay Liibiyan ka soo baxay tuuri malabadiina ma ahaydeen ma waxa kula fadnayn dadkii kale ma way dhinteen kuwana ma meed baa waa meed dadna xiguna kaliya qof kale badda dadna xidhan xarig xidho caawi xarig ku soo jiid ama kugu nimaadno intaan wada hadlayna markaas soo saareen gudusha ayaan soo saaray kadibna waxay noo soo daadiyeen biyo
iyo caano iyo 20 litr ama 40 litr biyo macaan ah sharaabiyo xidhan kadibna waxaan ugu dhahay anagu idinma qaadi karo halka ayaan idinkaga tegaynaa halkiina ilaahay ku tawakkalaysa arrintaas marka naxdin rajana soo gasheynaa badbaadayna laakiin rajadayadii naxdin bay isu bedeshay markaas aad u xumaatay marka laba sababood runtii oo caawinayo ka qayb qaadanaysa jirtay ko nimanku waxay ku hadlayeen luqada carabiga aniguna waxaan ku hadlayay luqada carabiga oo isfahmaynay laba niman muslimo way ahaayeen oo naxariis runtii ku jirto labadaas sababood marka way isqabteen oo naga tageen dabeetna markay laga socdeen ilaa 200 iyo 300 mitir meelaha qiyaastii dib noogu soo laabtay way liibiya markii dib leedii ku celiyay dadna waxa dhacay marka naxdintii noogu darayd ee markaanu ka badbaadnay badda la soo wajahday waxay ahayd markii hadana liibiya dib loogu celiyay marka waxayna geeyeen saldhig bilis lacag aanu haysanay dhakhtar marka liidma geeyay markii baan lama geeyay saldhig bilis baan la geeyay saldhigii biliska ayaana sii qaaday lacagihii iyo waxaanu haysanay ayay naga qaadeen oo ay nabaadeen kadibna waxay noo geeyeen dhakhtar la oran jiray mustashfى الحوادث kaasa marka aanu waxaanu ku jiray muddo dhan 28 maalmood